موسى علي فرور وهو ذكرنا إنسان أبوان كوين أبوان عن كوين تاب سومالي لكم هذا الشاه قارها السومال لان وحالا هل كنت حسن قلي أيها فرديش سنة كما هي شيء قلنا وانا جمو صوب لابن هديك الله يذكو وذا أنسيه هديك الله أنسيه ولا قيمة أنت قفل معيسو مدينية قولي هديك قبك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان أن شغلنا هذا وتشجعوا بان السجون فجأة الكيسانة وأبوانيتي سومالند وأنا حبضي كم غلي أنتوا اللي بدنا هذا كل انتهاي هذا كبر على صعد كدنا عوانسا وصعده يهدان بدنا قاتبا أنا يكون رمسان وكلوي مهم ما يسمقان وحاجة وحاجة مساعد فرو أبوان كانوا أول التقينين مرتيلهن دقيقان كاني وما تهاك فرديا وحكوا حاجة محمد عثمان محبة وكم الأبوانين تدرك سومالند ويسقون هالكن ديالكوا حسن قني إدين شيء ما يواك هالكا فرديا وأركتان واحد بيمع فرديا وأركيسان ما قالنا يسوى جوان ما مقنا واكن حبيب كينا فرديا صوران ونلتشو غاشنا واحد بيمع فرديا محمد هذا انطعر ما انت الله ما كلام قلنا صاحب كيبا أكتشوغا وإيقا قادم معانا نستولي لفتيذا وآبن شامع شاكية وانا كوضا مرضا نقرد قندونا بلنكيغا شاكية waxa ku xiga nin dhalinyaro ah oo isna abwaana oo liha guuleed Yuusuf Ahmed oo caan ku ah dhinaca gabayada xildhibaankayagii kama maqla abwaanada xildhibaanee wax xildhibaan deeg waxa xaggan dhinacayga isna fadhiya jaamac Suleymaan Tabeec oo isna abwaana sheekha waliba ah dadka nabiga jecel maxibay rasuul alayhi salatu wasalaam ee qasaadkiisa u qaado محمد مسكين عن مضاتي وعن حوجه وحنا نسيه مهمبيه وانا جاي سود وينيا ومحمد حسن علي وجه واحد اللي مركا ما انت هلكم واحد يسقوني مين ما كلام مغنمي وانا نقول لنا ودنت امطينا حلنا صار اول باء ايما نسيجده كورغفينا ووعي جلنتينا وحسيجنتينا ولي هاجاتينتينا كنتوسنتينا طريقه انت اصو اسكو توسن waxay noogu furi doona guuleed Yuusuf Ahmed ilaahay sida khayrka leh ayna waafajiyo waxaanu anagu doonayna iyo waxaanu idin la soo soconaa Allah ayno hirgeliyo Allah ayno hagaajiyo intaasi waa duco waxaan raacinayaa waxa weeye maanta ee aanu la soo soconaa waxa weeye sida loo sheegay dalka dadka danta diinta dhaqanka wax Allah waxa inteena nolosheena ah wixii dhibaato ku haya amba dhibaato ka jira sidii looga gutan lahaa ee loo sixi lahaa ayaanu idin la imanaynaa oo la soo soconaa keligayana dantu xilku nama saara haddaanu hiil weynana waxba ma tari karo waxaanu doonaynaa arrintaa aanu idiin soo gudbinay annagoo daba taagan halkay gashaba inaanu ka dabagalno oon cidnaba looga xishoon waxaanu doonaynaa inaan noo diyaar garownaan hawsha ballaaran ee aanu la soo soconaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله هو يوي horseed barakaysan weeye dadweynaha oo hawlkiisa hayinu gaadiida weeye dan guud iyo hoga tuskeeda hanuunsho ku foogan weeye markay gabay tihiyo heesta hawraar kama daale weeye markay halgantiyo difaaca naftii hore dhiiran weeye markay hawl qabasho joogto darbane iyo heegan weeye abwaanku hanweyne weeye heerkiisuna qaran ma dhaafo ma geeyo haybtiyo qabiilka ma dayo hoos iyo naftiisa ma soo hadal qaadatiisa hunguri iyo damac ma yeesho xil baa ka hor joogsanaya intaa waxaan raacinayaa waxa la yidhi horta dee waa aragtaan waa qamaamuurtii abwaanada waa kuwii waddanka dhiskiisa iyo dhiirigelintiisa iyo dhiig uhurkiisaba lahaa maantana waxay u soo gurmadeen ay isu keenay soo kaakiciyey waa la xijeclo dad iyo dal inay dhaqan ilaalin iyo dhexdhexaadin dhinac walba waxa la oran jiray saddex ma dhaqmaan geel qawsaar waayay ari qawriidho waayay iyo tol qalab la waayay abwaan qaran waayna ma dhismo baa raacinaya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillaah الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
halkan waxa maanta isugu yimid waa abwaanintii qaranka Soomaaliland intan oo abwaan waxa maanta isku keenay waa dareen baa soo kiciyay ergaan nahay waxaan erga ka nahay wax kasta oo dhibaato ku ah dalka iyo dadka wax kasta oo dalka iyo dadkaba dhibaato maanta ku haya ayaan erga ka nahay waxaan jecelahay insha Allah arinta ergada faahfaahinteedana waxa haddii Allah awood leh ogolaado dib baad ka arki doontaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxa laga hadlayo iyo waxa inayto maanta dadka isugu yimi halkan abwaanadan soo kiciyay odayadii hore iyo intiiga horeysay baa sheegay marka anigu waxaan leeyahay dadweynow waxaanu idinka martinahay ergaanu nahay in naga dhageysataan waxa aanu wadno waxa aanu idin sheegay inaad qaadataan insha Allah aanu garab iyo gacanna idinka helo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidii ay abwaanintii horeba sheegtay arintayadu waa ergo abwaan waxaanu erga ka nahay bulsho waxay dhisantaa dee markay ismaqalkeeda dhaqankeeda diinteeda wax walba ay isugu hagaagsan yihiin wax badan baa inaga leexday oo bulshadii ka leexday waxaasan baanu erga ka nahay idinkuna inay isku kaaye barbar taagtaan sida aynu wax uga qaban lahayn kulligiina waa nala leedihiin waxaan anagu maanta ka hadlayno waa soo jeedin waxaanu ka hadlaynaa inaa wax nagala qabataan isla kaaye barbar taagtaan wixii naga lunsan oo dhammi siday toosi lahaayeen aad iyo aad baan idin salaamayaa bulshada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مشاهدينا ومحاكيين الكرام لما بدد وينها شرفت الملك استانا جلس وحطان وحنا السلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت قوبتن ينتنو أبوانا وركتان وقوب وذا فردا أبوان حتى دركتو وحشيجا أيو وحضلا يا أبوان وحد شعلي مركي سهربا إن وناجا أيو إسلا تالنت أيو إسلا توسنت أيو وحس الشاق ومركزتا إن أنا بالشدة إن يوجد بيان وأبوانينتي دالك وأقويهنو وإن دير قردو مركزتونين أبوانهم ميلك هذا يولا وروح حاسده هلا قد يوحق الله عضيب وارك هدي أي دقن كتاي إيه هدي أي دين تتاي إيه هدي أي وعي قلين تاي إيه هدي أرمها كلا لما تكتوا أبوانك وحش عليه مركزتا إن لا توصل هذا مركز ما أنت وحنا هالكن السجون نمي هدي أبو حكم أي إن بالشدة اللي جو وعي قليه وحيالها كقلوا عضي لونة المعمود طريقة توسكا marka si ay dhukuna hawsha ugu diyaar garoowdaan oo maalinta ay timaado fariimaha aanu gudbinayno wax ka qabashadeeda hiil iyo hoo hadii ay dhageystii hadii kaleba sidii aad umadu ay wax uga qaban lahayd ayaanu halkan isugu nimi waa erga abwaan hadalka ma sii badinayo intaasaan ku koobaya dhammaan dadweynaha meel kasta aanu joognana waanu salaamayna hadii aanu abwaaninta nahay daliya dabadba saxaafada halkan ku xaadirka baanu salaamayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay adeegsan doonaan abwaaniintu waa abwaaniinta qaranka Soomaaliland hubkii lagu yaqiinay iyo maansooyinkoodii kala duwanaa hadday tahay gabay hadday tahay geeraar hadday tahay riwaayad maanta taangi madaaficiyada dawlad midna la hari maayaan si ay wacyigelinta ummadda ugu qaadaan ilaa riwaayadihii ay soo noolan doonaan insha Allah waana salaam salaamti maanta halkan ay doonayaan inay